بسم الله الرحمن الرحيم كان يدرس عليه قراها بوغا بولال أفكا كوددال وأنا 10 كيلوبات وأنا بوغن كو قادان ديغينا مانتا waxaanu hore uga hadalnay alifbaada si kooban iminkana waanu kala saarsaaraynaa waxaanu ku bilaabaynaa shaqalka a iyo mataankiisa oo ah a iyo a labadan sawir baa inoo kala muujin doona adeegsiga a iyo a far afar sawirkan sida idinka muuqato waa sumada afarta marka la raaciyo qodob taadan ugu dambaysa qodob baa la yiraahdaa waana wuxuu cayimayaa wax la isla wada yaqaano hadaa dhahdeed afarta nin ee xagga taagan oo waxaan isla arki karno isla eegi karno sidaas daraadeed taadu waa cayime waxaanan u raaciyay magac walba afar imika waa magac tiro waxaan raaciyay qodobkii si loo cayimo hadhowtina ay u fududaato barashada qodobada markaaynu galno bugaagta dambe insha allah ale ama ale sonkor dadka qaarkii wuxuu yaqaanaan qasab waa ale marka qodob la raaciyo ha ayaa raacaya alaha ay noqonayaa eedii ugu dambaysana way isbedelaysaa waxay isu bedelaysaa a waxa ku dhaca wax la yidhahda isa saameyn oo aadan xaggan u dambaysa ha'da ayaa xoog u bedeshay eedaas badanaa saas ayayna u bedeshaa xaraf kastoo ku dhamaanaya ama erey kastoo ku dhamaanaya xarafka a xaggaas ayaan uga gudbaynaa balse waa inaad qorto kasoo shaqaysaan layligan hoose ereyada soo socda raaci shaqalka a ama iyo shaqalka a kadibna akhri marka idinka ayay idiin taallaa inaad qortaan kabacdina akhrisaan waxaad isticmaalaysaan keliya shaqalka a ama shaqalka a okay waxaan u gudbaynaa shaqalka labaad oo ah eberka eelada sidii hore si lamid ah qodobka da marka uu qaato ereygani maadaama uu ugu dambeeyo a odii way isbedesho a bay isu bedeshay marka waxay noo muuqanaysaa iyo o bayna isbedelayaan oo ay qaadanayaan a isuna bedelayaan a sababtoo ah qodobada ka dambeeya ayaa wata a waxaan rabaa inaan si faahfaahsan uga hadlo isduldhigdhigan aan isduldhigdhigay ber waa dhawaaq gooniya waa alan gooniya saan ku arki doono xagga hoose berna waa alan labaad oo isla wada socdaan ma kala reebi karin xaraf marka ujeedadu maaha inaan xaraf u dhigayo sawir walba si loogu dhawaaqo laakiin waxaan u kala saarayaa alan saas daraadeed ayay u kala go-an yihiin eber kasii soco sidii hore si lamid ah ardayga ayaan u dhaafayaa inuu xaggan marna geliyo marna geliyo kabacdina uu ereyadan ku dhawaaqo oo uu akhriyo way ficlaan lahayd inaan ereyadan isla akhrino oon macnahooda isu sheegno laakiin xagga hoose kusoo qora ama faalladiina kusoo gudbiya okay xarafka saddexaad ee shaqalada waa mataankiisana waxaa weeye ilig iidaan waa saliidda iyo ama caanaha iyo wixii kolba lagu daro furinka qalalan ama garowga qalalan ama digirta qalalan wixii kolba lagu daro ee lagu iidaamo waxaa la yidhahdaa iidaan iliga iidaanka sidii hore si lamid ah idinka ayaa ka shaqayn doona layligaas xarafka afraad waa o iyo mataankiisa oo ah orod oohin orodka oohinta
waan kasii gudbaynaa. u kun ukun uley ama yey. ukunta uleyda xaggaas ayay ku leeyihiin shaqaladii. waxaanan marka dambe u gudbi doonaa shibanayaasha.